nin baa laga hayaa wiiga dhow markaa waqooyi u baxo wixii aan walaweyn wadada ku arko inaan wasaya wallaahi walaweyntu weligeedba dhibaato aan yarayn bay reer Somaliland la daba taagnaayeen halkan waxaanu kaga hadlaynaa arrinta e-visa baliyar daawo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaa aad qurba joog tahay oo wadamo qalaad joogto oo daltab iyo maanta ay ku hayso mayray marinkii mas wax laayiyo marudaa galay e-visa isbaaro ahaan hawada laynoo dhigtay reer Somaliland maanta waynu soo dalxiisanaa waynu soo dhoofaynaa samarka dadka iyo caruuraha iyo reeraha iyo dhalinyarada iyo cid walba waa imanaysa waxaan idin sheegayaa marka wixii aniga aan kala kulmay e-visa horta marka ugu horeysa dhibaato weyn ayaad kala kulmaysaa applicationkiisa online-ka ah ee aad ka samaysanayso waa meel aad iyo aad u liidata wuu iska ka xirayaa qoraaladu diidayaa information aad gelinayso ayuu diidayaa sawirkuu diidayaa cid garanaysa waa inaad ula tagtaa oo ku fiican website-da iyo computerada waxa ku yara fiican oo dhalinyaradu way wada yaqaaniin taas ku taxdira wuu iska ka jaraya wuu iska ka goynayaa ha ka niyad jabina nin ayaynu dhiilka nafsi ku buuxinaynaa oo aynu dilaynaa sawirkuna waa kaas soo print karaysta kaasaa idin soo go'aya isagoo warqad ahaan soo qaata waxaan idin sheegayaa Abu Dhabi meesha la yiraahdo marka aad timaado anuu Abu Dhabi aan soo maray Abu Dhabi meesha la yiraahdo marka aad timaado Ethiopia waa la mid baan filayaa baasaboorkaaga iyo e-visa-haaga ayaa la isu eegayaa inay ismatch gareeyaan oo is waafaqsan yihiin marka iska hubsada meeshan waqtiyaanu idinkaga lumin fiisahan mujrimka Xasan Sheekh koonfur geed kasta mayd buu dhigay inagana inoo daahimaayo halkuu inaga soo gaari karaba way naga dhibaateynayaa ku gura nafsiga $64 ayaa laga qaaday nin cawtar dariiqa oo wadada taagan oo dadka baaranaya oo dadka dilaya oo murder ah oo gacan ku dhiglaha oo dhiglaha lacag laga qaaday wax la noo qabanaya ma jirto wadana noo dhisi maayo caafimaadna na siin maayo ammaanna na siin maayo ilaahay ka dhigaya tacliinna na siin maayo xashiishna naga xaari maayo wax la noo qabanaya ma jirto dariiqaas uu taagan yahay dadku dhacay wixii uu soo gaari karana wuu dilayaa madaxu ka goynaya wixii aanu gaari karinna sidii uu khasari karo uu khasaraya lacag ka qaaday qolba joog imka anaga waxaan laga qaaday $64 ya familiyada qof walba caruurtii 5 jirkeed baa laga qaadaya $60 ya hadduu ku dhargayo ku buuxsamayana ilaahu ku dhargayo ku buux ya haddii kalena ilaahu ciduu wax dhacotay ugu dambeysay uga yeen. Ladies and gentlemen, thank you for waiting. We're now allowed to invite customers in group 2 and group 3. That's 2 and 3. Please come through. soo qaata dhilka ku buuxiya imika intii aanu soo soconay qof kasta iyo checking kasta waa lagu weydiinaya visa diyaaradda London kama raaci kartid haddaanad e-visa sidan mujrinka mooryaanka macbuudka ilaahay ka go'ay ee xasan gurguurte munaafaqa ilaahay ka go'ay waynu ka guulaysan doonaa insha Allah imika waxaynu eegaynaa diyaaradda Fly Dubai ee Soomaalidu sheerka ay ka leedahay Fly Dubai waxay samaysay familiyadii iyo caruurtii midba kursi gaar ah bay fadhiisay familiyadii caruurtii diyaaradda way ku cadilaayeen waa la kala fogeeyay marka bifadlakum hadaa soo dhoofitaan Europe iyo America iyo Asia meesha Fly Dubai ka soo raacaysan kuraasida make sure hubiya in aad isku booking gareystaan oo aad kuraasitiin hadaa dad xanuunsanaya wadaan hadaa caruur wadaan hadaa dad jilicsan wadaan hadaa wada socotaan kuraasida online ka soo booking gareysta hadaa tigidhka xafiis ka soo goosateena xafiiska ka soo diyaarsada dad waalida oo caruurtoodii meel la geeyay oo 12 jir ka yar ayaa diyaaradda nala saarnaa oo aanu kuraasi la baryeynay oo rakaabkii kuraasidaa saarnaa aanu baryeynay oo aanu lahayn waalidkan iyo caruurtan ha wada fadhiistaan kursiga u bedel bifadlakum waan ku baryeynaa ku tuugaynaa u bedel Fly Dubai marka ma eegayso qofka ay kursiga u booking gareynayso inuu yahay caruur iyo in kale ma eegayso way iska booking gareynayaan automatic selection bay sameynayaan marka ka taxadira diyaaradda Ethiopia Airlines waa la mid iyaduna af xabashi iyo af Ingiriisi bay ku hadashaa marka diyaaraduhu ha tixgeliyeen dadka saaran rakaabka ay ka ganacsanayaan online soo dhoofa dalkiina soo booqda sida muwaadinkaana calanka soo qaata diyaaradahana iska ilaaliya kuraasida isku soo hagaajista diyaaradana la hadlo wax tiran af Soomaali lagu laado anagu ku afkaran mayna safar salaama safar khayr qaba iyo dalxiis wanaagsan